waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan barwaaqa gaarne barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo gajiya u bakhtiya basaasto duntisu ka boodiyo bulaanye gajiya u bakhtiya basaasto أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي محض له سكان كان ماشان مركه هره مركه لبعت وحن أمهات علينا يا سلام قيمة قائل أمر سينا يا مامورك سكول كهالبيك سيدا كل وحن آت ما تقول فرحسنا هي إنا ما أنت هوتي نسو استواجه أرض الصوماليات برنا يسا علمك عافيماتك ويلل يقبل قروح بدن وجيوده إفايان una diyaarsan inay noqdaan takhaatiirta berito badbaadinaysa waddankeena Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad aad ayaan u faraxsanahay hortiina inaan soo istaago sidoo kale meesha waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo TV-ga Muqdisho Cable oo ah TV-ga noo duubayo programkan maanta quruxda badan ee nooga baxayo iskuulkan Halbeeg sidoo kale waxaan rabaa inaan idinka xasuusiyo ururka waxa la aasaasay 2013 laakiin shaqo ahaan wuxuu soo howlgalay wixii ka dambeeyay 2015 dabayaaqadeedii waxaa u badan qabanaa ka mid tahay ururka loo saaid iska saaran yahay waa magac ahaan markii loo yeeriyo dhanka afka qalaad waa Somali Health and Education Development Organization waa laba section oo biga aad u weyn hadii la yiraahdo education hadii la yiraahdo caafimaad labada dhinacba ururku uu u taagan yahay intii karankiisa inuu horumar ka sameeyo qaybahaas ururka waxaa asnato 13 sida hore ku sheegnay waxyaabaha aan qabano waxa kamid ah qaybta training-ga ama seminariska aan u qabano ardayda high school-ka iyo kuwa university level ama bas kala dii loo yiraahdo ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskuulada anaga ka xaqabtirno barnaamijyo la soo xulay eegana baahi weyn u qabaan si aan cilmi uga faa'iideystaan waxyaabaha aan qabano kale waxa kamid ah oo qaybta waxbarashada aan ka qabano ardayda waxaan siinaa minxooyin ama scholarship kaas oo ah jaamacadaha waxa jiro arday badan oo Soomaaliyeed ka qalin jibiyay iskuulada high school-ka laakiin duruufo dhaqaale awgeed u saamixi weysay inay ku biiraan jaamacadaha that's why ardayga wuxuu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho sare marka dhankaasna iyadana waxa ka sameeynaa inaan hortagna jaamacadihii aan ka soo qaadanay minxooyin ama scholarship si ardaydaas ay ugu faa'iideystaan aqoontooda hore ay ugu sii wataan waxyaabaha kale oo dhanka waxbarashada aan ka qabanay waxa kamid ah waxa jiro iskuul lacag la'aan ah oo ururku leeyahay oo la yiraahdo Somheeda Voluntary School waa iskuul sidaan kale qurux badan dhigtaan arday Soomaaliyeed maamooyin iskuulkaas waxaan u kala qaadnay laba qaybood oo ah qayb islaamiga iyo qayb maadiga maadaama aan dad islaama diinteena islaamkana wax kamid ah in la barto quraanka iyo xadiista waajib ay nagu tahay subaxii waxaan ka dhignay ardayda inaan barno quraanka kariimka qolka eebe wax la bartana wax uu qiimaha qaayaha badan ah sidoo kale xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam siirada intaba in ardayda waxaan ka dhisnay dhanka diiniga sidoo kale dhankaas kaliya kuma aan ekaanina waxaan sidoo kale ugu darnay maadooyinka asleenahay waa basic ama waa asaas waxaa kamid ah maadooyinka ardayda aan ka dhisnay waxa ugu horeeyo priority-ga mudnaanta asiina waxa kamid ah waa luqadeena hooy waa afkeena Soomaaliga wax ka mudan ma jiro markii maadiga loo imaado sidoo kale ardayda waxa kale oo ugu darnay maadada xisaabta oo iyadana ah maado aad muhiim u ah
sidoo kale ardayda waxaan waraacsiinay luqadda ingiriiska oo iyadana sidoo kale ah luqad basically dadka laga dhiso loo baahan yahay iskoolkaas waa free waa lacag la-aan arday lacag looga qaaday ma jiro sidoo kale ardayda buugta wax ku baranayaan ururka ku deeqay qalamaanta wax ku baranayaan ururka ku deeqay macallimiinta dhigaayo salary ay qaataan ururka dusha u ritay inuu macallimiintaas ka bixiyaan salariga dhammaan iskuulkaas waxa ka jiro waa wada free ururkaana damaanad qaaday sidoo kale daa usoo dhaco dhankan gargaarka bil-aadanimada waxyaabaha ugu muhiimsan oo in bulsho ay sameyso loo baahan yahay haddii aan laisgarab istaagina waxay noqonaysaa in mataqaanaa bulshadii ay wada daawato maanta waddankeena uu burbursan yahay waa wuxuu kusoo jira dib u kabasho kusoo jiraa marka in laisgargaaro laisgarab istaago waa wax aada iyo aada u muhiimsan dhankaasna iyadana waxaa ka sameynay inaan iidsiinay caruur soomaaliyeed ilaa dhowr iyo toban gaaraya iid weyneedii itii kasoo horreysay iidyareyda oo lasoo dhaafay inaan iidsiinay caruurtaas oo aan guddoonsiinay dharkooda iidda si ay farxadda ula qaataan caruurta soomaaliyeed waalidkooda u nool yahay ee farxadda iyo damaashaadka ku ciidaya si ayagana murugo aysan u dareemin inta kalaankeena waxaan sameynay inaan iidsiinay caruurta soomaaliyeed sidoo kale waxyaabaha aan qabana qaybta gargaarka bil-aadanimada waxaa ka mid a caseeyaha ilmaha caseeyaha waa ilmo soomaaliyeed ku shaqaysta xirfadaas basicalina muqdisho ku badan sidoo kale caruurtaas waxaan u sameynay inaan guddoonsiinay qalabkii wax ku casaysanayeen iyadoo dhiirigelin ah waxaan siinay buraashkii wax ku buraashayeen sidoo kale luujitadii hadday ahaa lahayd shaambooyinkii hadday ahaa lahayd sufufkii dhammaan agab walba oo wiil yaroo soomaaliya caseeya oo wax ku qabsado waan guddoonsiina si dhiirigelin ay ugu soo noqoto shaqadoodana hore ay ugu sii wataan inta karaankeena hawshaasna waxaan ka dhignay howl joogto ah labada bilood mar waxaan sameynaa inaan hal mar sameyno haddii ilaahi idaa qeybaha kale ururka usii taagan yahay amaba uu higsanayo amaba inuu qabto tusaale ujeeda waxaa ka mid a minxooyinka inaana ku ekeenin jaamacadaha keliya inaan sidoo kale aan kusoo biirno iskoolada waxaa jira caruur soomaaliyeed jidadka joogo waxba aan baranin laakiin rabo inay horumar iyo higsi gaaraan laakiin wax garab istaaga la caruurtaas marka si ay u helaan jaaliskooda waxaan rabnaa barnaamijka scholarshipka ama minxada inaan kusoo siyaadino dhanka iskoolaadka oo ardaydii beeska hoose laga dhiso ilaa koowaad ilaa ay ka dhameynayaan form 4 kadibna jaamacadooda ay ku biiraan waa midda iyadana somheedo ay u taagan tahay inay sameyso hal mid aa jirto hal hees yar oo mar walba aniga aan leeyahay dadkan aan usoo jeediyo waxaa ka mid a maanta waddankeeni dabcan wuxuu kusoo jiraa dib u kabasho waxaa arkaysaa dhammaan jidadka ilmo caseeyaal oo koola dhuuqa qof walba waa arkaya qof walba sidaas u fiirinaya hore uu sii soconaya qofku wax u qabanayo way yar tahay arrintaas waa arrin dhammaanteen inaan wax ka qaban loo baahan yahay ururka somheedo keliya iyo ururaadka nala mida wax kama qaban karaan barnaamijkaas dhammaan ummadda soomaaliya isgarabsato gacmaha isqabsato caruurtaas in loo gargaaro isku dhiirigeliso wax lagu qaban karaa caruurtaas waxa ugu yar oo wax loogu qaban karo waxay tahay in qof walba uu iska aruuriyo waa $1 maanta $1 qiimo mana qof walba waa ogyahay maqaaladii la gala xitaa qofka kuma filno inuu cunto ku cuno misna jaabka qofka bili-aadanka waxba kama dhibayso marka halkaa $1 dhammaanteen intaana meesha fadhiso in kale markii qof walba $1 laga qaado wax baadina tartaa waxay tari kartaa in caruurtaas lasoo wado in guryo loo kireeyo in waxbarasho la siiyo in quraan kariimka la baro in mustaqbalkoodii la dhiso si beri ay u noqdaan ubad soomaaliyeed asaagooda wax la qabsada haddii jidadkaas lagu daayo taas badalkeeda dhaceyso oo maxay tahay waxay tahay in caruurtaas beri gaangis ay kusoo baxaan ama gaangistaro sababtoo ah yaraantiisa naxariis sooma arkin hooy haddii la yiraa markii annaga aan ku seexanaynay sariiraha iyo guryaha dukaalka ayaga waxay seexanayeen jirdiinada iyo eeyihii la seexanayeen cunto markii la dhaho markii hooyada beerka ay ku karinaysay iyo suqaarka ayagana waxay cunayeen qashiqubka wax laga soo arooriyo marka cunug ku soo koray naxariis darradaas ma ka sugaysid beri mustaqbalka inuu cunug wanaagsan oo noqdo baasa waxaan leenahay maxaa waaye sababta keenayso in mataqaanaa mooryaannimada gangistarnimada ee soomaaliya kasii jirto taas waxaa u sababa cunuga maanta aad dayacday beri wuxuu noqonayaa gangiska beri waayo daadisway si caqabad ees ugu soo noqonin haddii dhammaanteen awooda istaagno aan garab istaagno caruurtaas jidad ka soo aruurino waxbarasho u fidino waxay noqonaysaa taas bedelkeed inay imaato dhammaan caruurtaasna mustaqbal ifa ay yeeshaan waa midda mar walba aan ku beeriyo dadka soomaaliyeed aana ka daalaynin mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad aan kugu mahad celinaa horjooggiina dabcan warki waa dheereeya u maleynayaa horjooggiina mar labaad iyo mar saddexaad ma ka daali doono insha allah kulamadan iyo kulamo kasii badanba waa iskugu soo laaban doona haddii ilaahi yaraa